waxaa maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn xaflad ballaaran oo lagu daahfurayo xafiiska ururka Khaatuma Daryeel dadkiya dalka laantiisa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Furintaha xafiiskan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada kala duwan ee ka jira gudaha magaalada Buuhoodle, cuqaal, waxgarad iyo mas'uuliyiin ka socda dawlad goboleedka Khaatuma State. ugu horeyntii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha laanta magaalada Buuhoodle ee ururka Khaatuma Daryeel dadkiya dalka Xamse Xasan Geele waxauna ka xog waramay furitaanka xafiiskan iyo dhammaan hawlaha qaran ee ururkan Khaatuma Daryeel uu ka fuliyay deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo laamaha kala duwan ee uu ka furtay dhammaan degmooyinka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo sidoo kale kuwa lagu hawlan yahay in imika la furo. نوتوجا فريدي أوركان عصب بيعدو Khaatuma Daryeel dalka iyo dadka ururkan oo ah urur ka jira deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ah urur ka shaqeeya dadka dhibaataysan ee waxyeeladu ay ka soo gaadho dhibaatooyinka maamulka asna u geystay sida dagaaladii ka dhacay deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dagaaladii ugu dambeeyay hadeerto dhinacay Buuhoodle iyo Laascaanood oo qayb libaax ka qaatay ururkani oo dhaawacyadii wax ka soo gaareen iyo dadkii loogu qaybiyay lacagayo ay ugu soo tabaruceen dhalinyarada ururkan sameysay oo ka jirta North America iyo London oo ah qurbajo ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. ururkani waxaa la yiraahdaa saan magaciisa hore u xusayba Khaatuma Daryeel dalkiya dadka waxaana uu xarumo ku leeyahay magaalooyin fara badan oo kamid ah gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn sida caasimadda ku meel gaarka maamulka Khaatuma State of Somalia Taleex Boorbogeys Badun xafiiskiisii Buuhoodle oo aynu ahaynna mar hore furno hawlo la xiriira dagaaladii ay dib nooga dhaceen ay isagana maanta halkan wanaga ka furnay sidoo kale guud ahaanba gobolka Cayn xafiisyadiisii oo isagana la furayo sida ugu dhaqsiyaha badan usbuucan soo socda xafiisyadaas oo aan ka furayno fadhi ceegaag goljanno Bilaalo Axmed Dhuguxid qararo meesha la yiraahdo Xadharan dandan dhammaan deegaanada hoos yimaada gobolka Cayn oo dhan aan ugu talagalnay inaan ka furno sidoo kale ururkani waxa uu wax badan ka geystay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii ay soo qaadeen ciidamadaasi maamulka asna dhaawacyadii iyo agoomihii abayashood ku dhinteen dagaaladaasi waxaa la soo gaarsiiyay lacag $29,000 oo ururkaasi soo gaarsiiyay sidoo kale waxaa $2,000 la soo gaarsiiyay oo isaguna ururku ugu deeqay ninka la yiraahdo Deeq Xasan Gurad oo ah mujaahid ku waxyeeloobay dagaalkii Hagoogane oo ay lugtu dooday sidoo kale waxaa $2,000 oo apologies uu ururkani siiyay dhalinyaradii kala goosatay tiknikada Mahad Cambaasho oo ah howlgalaha ciidamada asna ugu sugan magaalada Laascaanood sidoo kale dhaawacyada hadeerto ugu dambeeyay ku dhaawacmay magaalada Laascaanood shaqaytooda Laascaanood wuxuu ku guddoonsiyay ururka Khaatuma Daryeel dalka dadka xafiiskiisa oo si gaar ah u shaqeeya magaalada Laascaanood gudaheeda dhaawacyadaas lacag buu guddoonsiyay mid kamid ah ululba lagu siiyay lacagtii oo halkan insha Allah xafiiskan aan ku qaabil doono imaanaya oo ulul jooga lacag $400 oo dhaawac lugta iyo xiniinta ay ka soo gaareen marka ururkani sida aan idin sheegay baa mudane Elmarwey waa ururkaasi wuxuu ka shaqeynayaa dadka ay waxyeelada iyo dhibaatadu ay ka soo gaaraan dhibaatooyinka ay lagu hayaan ciidankaasi maamulka asna xafladana waa xafladii maanta aan ku daahfurnay xarunta Buuhoodle ama laanta Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn xafiisyadii kale dhammaan ururku ku yeelan lahaa tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Caynna insha Allah waa soo furaynaa isbuucan haddii la idmo. waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay maayarka degmada Buuhoodle ee maamulka Khaatuma State of Somalia Kayse Maxamed Xaaji Cali wuxuuna si weyn u soo dhaweeyay hawlahan baaxadda leh ee ururkan Khaatuma Daryeel dadkiya dalka ku taageeray shacabka deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ee waxyeeladu ka soo gaadhay duulaanadii kala duwanaa ee ciidamada maamulka Somaliland ay ku soo qaadeen goboladaasi
waxauna uguna baaqay ururkan iyo maamulkuba inay iska kaashadaan sidii loo samayn lahaa taalooyin lagu xusayo xasuuqii ciidamada maamulkaasi ay ka geysteen deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. ugu horeyn waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyarada abaabushay in ay xafiiskan Khaatuma Daryeel maanta ka furto degmada Buuhoodle. xafiiskaas oo sidii wadbixinta ku jirtay dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka maamul goboleedka Khaatuma laga soo wada furay. waxaan kale oo soo dhaweynaynaa sida ay dhalinyarada deegaanku ugu abaabulan tahay wax u qabadka iyo horumarinta deegaanka. ururkan Khaatuma Daryeel waa ururka ilaa iminka ugu muhiimsan ururada iyaga ay isu xilsaaray daryeelidda iyo wax ka qabashada iyo ka warhaynta dadkii ku waxyeeloobay iyo kuwii naftooda ku waayay difaaca waddankooda. ciidamadaas SNM-tu ay sida xaqdarrada ah yacni magaranaysaa u waxyeeleeyeen. intaa waxaa raacda cid waliba taariikh iyo magac ayay caalamka kaga tagtaa. waqti walbana dad baa shaqeeya. ururkan isaga ah ee maanta xafiiska degmada ka furtay wax wacan buu qabtay. waxaan leeyahay in agoomaha lacag la siiyo oo la isu xilsaaro, dadka naafoobee dagaaladaas ku waxyeeloobay la gacan qabto, laga warhayo waa wax aad iyo aad muhiim u ah halbowlaha, waa lafdhabar. waxaas oo dhanba ka sii muhiimsan haddii aadan taariikh yeelanin oo marba wixii ku soo mar aadan taariikh ka samaynin waxay noqonayaan biyo xildhaash. waxaan leeyahay dadka iminka ururkani u xilsaaran yahay uu isu abaabulay ama kuwii dhintay ha ahaadeen ama kuwa hadda naafada ah ee laxaadkooda dagaaladaas ku waayay gardarrada ha ahaadeene ururka SNM dadka dagaaladu si badan bay u dhacaan. Soomaalidu weligood iyo allahoodu way dagaalami jireen, laakiin nooca iyagu dagaalka hadda u sameeyeen wuxuu ahaa nooc aan ku saraysnayn noocyada ay Soomaalidu u dagaalami jirtay. dadka badankiisa kaaraa la mariyey, beebayaal baa la mariyey, caalamka oo dhan baa daawanayey, cid waliba way ka warhaysay. waxaan leeyahay taallo muhiima oo taariikhda gasha oo beebayaashii iyo kaarayaashii dadka loo adeegsaday ee la mariyey ee naftooda lagu waasiyey sida gardarrada ah ee isirka la xidhiidha loogu laayay ha lagu muujiyo. kuwa curyaamiinta ah ee laxaadkooda ku waayana ha lagu muujiyo. taasaa taariikh noqonaysa. annagu maamul ahaan waa iskiin garab taagaynaa. waxaanu ku ballan qaadaynaa kaabadaha noocaasa iyo ururka laftigiisaba in aanu sidii u noqon lahayn labaduba wax hirgala aanu uga shaqayn lahayn. waxaanu ku ballan qaadaynaa dadka iyaga cashuuraha laga guri doono dadka iyo dakhliyada soo bixi doona kuwa ugu horeeya ee laga daryeelo intooda hadda naafada iyo kuwa agoomoobeyba in ay noqdaan haddii ilaahay ka dhigo oo aanu ahmiyadda kuwaad siino. waxaa isna hadal kooban oo isugu jira bogaadin iyo taageeraba ka soo jeediyey afhayeenka deegaanka Buuhoodle Maxamuud Sheekh Cumar. waxauna wax ka taabtay waxqabadyada kala duwan ee ururkani qabtay islamarkaana uu goobjooga ka ahaa. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay baa mahadle. ilaahayga halkan isugu keenay aynu ku furayno xafiiskii ugu horreeyey ee gobolka Cayn ee ururka Khaatuma Daryeel dadkiiyo dalka Soomaaliya aynu ku furayno iyadoo tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka kooban yahay dhammaan laga furi doono. ururkan oo sida laynoo sheegay dadka abaabulay ama sameeyey ay yihiin dad ka soo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn kana halgamaya dhibaatooyinkii ay geysteen ciidamada ku soo duulay deegaanka SNM-ta. dhibaatooyinka ay geysteen ama dhimasho ha noqoto ay aqoontoodii wax siiyaan ama dhaawac ha noqoto ama kuwo ka goostay oo ka soo noqday dunuubtii ay galeen oo ay siiyeen tacwiid siiyeen ha noqoto.
ama noocyo badan oo kala duwan ha noqoto annaguna goobo badan oo hore aan goobjoog ku ahayn meel loogu qaybinayo lacago dad dhaawaca ama aqoon ama arrimahaas oo dhan aan goobjoog uga ahayn waxaan marka horeysa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi naxariis leh waxaan u ballan qaadaynaa inaanu la shaqaynayno lana shaqayn doono ururka ummaddiisa u shaqaynaya ee isu abaabulay dhallinyarta isu abaabushay waxaan ka codsanaynaa kuwa kale ee la mid ah ee qurba joogta ama dalka gudihiisa jooga oo deegaankan u dhashay inay abaabuladan oo kale sameeyaan ama isaga ku soo biiraan ama ay kuwa la nooca sameeyaan kuwa ummadda kalena ay ku dayato dadkeenna ah ama ay deegaan kastaba joogta ay ku dayato oo ay ku soo biirto yaanu ilaahay idinka baryaynaa cadowga allaha jeliyo sanamta iyo xuquuqdarrada iyo dimuqraadiyad la'aanta ay noo geysanaysay ee dadkayagii iyo dalkayagii iyo barkadahayagii iyo guryahayay ku haysato allaha jeliyo khaatimaha ha guulaysato ururka daryeel ha guulaysto guddoomiyaha ururada ka jira gobolka Cayn Cabdirasaaq Maxamed Aw Yuusuf ayaa dhankiisa si weyn u soo dhaweeyay waxqabadyada ururkan isla markaana waxa uu sheegay in ururkan imika uu diyaar u yahay inuu weli halkaasi ka sii wado taageerada ballaadhan uu siinayo shacabka deegaanada Khaatuma State ee dhibaatada kala duwan ka soo gaadhay duulaanada lagu soo qaaday ugu dambeyntiina waxa ugu baaqay dawladda Khaatuma State inay gacan ballaadhan u fidiso ururkan sida xawliga waxqabadkiisu ku soconayo ururka Khaatuma daryeel dalka iyo dadka oo maanta laga furay magaalada Buuhoodle oo loo soo gudbiyay waxqabadkiisa marka la eego runtii waa wax aad ugu farxo weeyaan magaciisa oo haddeerto aynu aragno iyo waxqabadkiisa marka la soo eego waxaad moodaa inay aad u kala xoog badan yihiin waayo sabab tahay lacag runtii aad u fara badan oo haddeerto laynoo sheegay ayuu ku deeqay sida muuqatana mid kale diyaar buu leeyahay oo uu leeyahay diyaar gobollada soo yeesnaya inuu ku fangareeyo ama ugu tabaruco marka waxaan leenahay dadka ficilka fiican sameynaya aad bay u mahadsan yihiin waana taageersanahay waana soo dhaweynaynaa maamulka Khaatumana waxaanu aad ugu boorinaynaa in uu gacan qabto ururkan oo kale oo uu si gaar ah ula shaqeeyo soo dhaweeyo waxaa la yidhi gacmo wadajir wax ku wayaan baa layidhi muqaasha iyo maamulka iyo dhammaanteenba waxaynu la gudboon inaynu si dhab ah ula shaqeyno ururkan si uu u gaadho hadafkiisa ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda soo afmeeray afayeenka golaha dhaqanka ee gobolka Cayn Caaqil Maxamed Nuux Maxamed ugu horeyna waxa uu mahad ballaadhan u jeediyay dhammaan xubnaha ururkan Khaatuma daryeel dadka dalka ee ku nool daafaha caalamka caaqilka ayaa ku booriyay dhammaan qurba joogta ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay bilaabaan dacwad ka dhana madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo si loo soo hor istaajiyo maxkamad caalami ah isla markaana loo xisaabtami lahaa xasuuqa uu ka geystay maamulkiisu deegaanada Khaatuma State ugu dambeyntii ayaa caaqilku waxa uu halkaasi ka soo jeediyay hadallo dhinacyo badan taabanayay oo si weyn u soo jiitay marti sharaftii xafladdaasi ka soo qayb gashay marka hore u mahad celinayaa dhallinyarada firfircoon ee ururkan samaysay uu ku qoran yahay xarfihiisa halka naga sarraysa lagana daawan doono adduunka daafihiisa oo dhan waxqabadkiisana aanu hore u aragnay dibna ay u wadayaan kuwa waa salaamayaa waxaan leeyahay kuwa iyo dhallinyarada kalaba jiilka bari dhulka u talin doona idinka ah waxaad qabataanna waxaa layidhi waa xaqudirir baad tihiin annana waa idinku garab taaganna waxaan kaloo mahad u celinayaa qurba joogaha dibadaha ee u soo dira dadkii uu ku soo duulay Siilaanyo sirgoynta ku soo duulay ee dhaawaca yeeshay ee dhibashada yeeshay ee naafada yeeshay dadka walaalahooda ee soo taageeray cid kastaba weliba u badan hablaha daarood waan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana bogaadinayaa waxaan kaloo leedahay qurba joogta Khaatumo ee joogta dibadaha rag
rag iyo dumarba inay dhulkooda u soo dadaalaan waxna la qabtaan iyo dadkooda annana halkan waxaanu nahay shuubabkii ama tirarkii guriga fooqii isku taagi lahaa baanu nahay waana dhisaynaa waana dhisnay waxaan kaloo adduunka u sheegayaa cali samatar baa maxkamad igu socotaa dadka qurba joogga ee khaatumo waxaan u soo jeedinayaa inay siiraanya maxkamadda adduunka soo taagaanoo ay dembi u galay ku soo eedeeya baan adduunyadoo furaya oo inay maxkamadda dembiyada uu galay dagaalka isgoynta ah maxkamad caalamiga in la soo taago idinkuna dadka khaatumo ee dibadaa joogoo taa ku shaqeeya markhaati mana dafiri karo oo adduunka waa laga daawanayay waxaan kaloo u bogaadinayaa soo salaag cayn in si fiican loo wada shaqeeyo oo qofka meeldaraneegga ah la soo qabto hadduu qabsoomi waayona in irbad lagu mudo oo uusan cid kale u shaqayn dadka kale gobollada ku dhaqana sidaasan ku nabadgelinaya waxaan leedahay madax dhaqameedka waxa baydhay waxaa u badan dadkii waayeelka ahaa ama wax garan lahaa ama dadka hoggaamin lahaa iyagana waxaan leedahay dee maskaxdooda fayras ku dhacay cid kasta waxaan ku bogaadinaya oo caafimaad qabta oo indheergarada in ay maamulkooda khaatumo isteed soomaaliya in ay la shaqayso soomaali weynta la shaqayso waxaanu kaloo sheegaynaa beelaha harti dadka shacabkee waa walaalada waa wanaagsan yihiin laakiin mas-uuliyiinta iminka buday ka talisa baa annagana xumaynaysa iyagana xumaynaysa annagu khaatuma istaagtee waxaanu haddii alamida ku ballanqaadaynaa buntland idinka dumiyee inaanu wax idinla qabanno waanu ku ballanqaadaynaa haddii alla idmo waa wada shaqaynaynaa waa laba maamul oo isgarabsanaya iyagana intaasaan leedahay waxaan leeyahay beelaha isaaq war haddaydan colaadda ku wada jirin oo aydan inkastoo imikaanu arkayno cadaaladnimada dhexdiina laga samaynayo ama asxaabta lagu samaynayo ama raggii in cabdulqaadir ka mid ahaa lagu samaynayo haddana dee haddaydan colaadda ku wada socon wax ka qabta waxa meeshaa ka socda ee isirka ah wax ka qabta habar jeclana kelmad baa leedahado horta meesha in badan baad doonaysa inaada fuushaan iminkana marxaladiinii la arag dib loogama hunguri qabtaan oo waxaydu adduunka idinku sigmi doontaa habar jeclay muuse waa kaa idinkana intaasaan dilaada waxaan leenahay ururkani ha jiro khaatuma ha jirto cid kasta oo maskax fayow oo caafimaad qabta waa soo dhawaynaynaa waa la shaqaynaynaa waxbaanu ka qabanaynaa qurba joogta khaatumana oo weliba aan leeyahay meel kastoo joogaan 95% dumarka khaatumo ama dhulbahante aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hablaha kale ee daarood ee soo caawiyey dadkii waxyeeladu gaadheenna aad baan ugu mahadnaqayaa qof kasta waxay la tahay wuu arkayaa waddanka waxa ka jooga annana waanu shaqaynaynaa dowladaha dariska iyagaana waa u mahadnaqaynaa ee Etoobiya waayo lagama dhaxayso wax dhibi maamulada hareeraha naga xigana waxaanu anagu leenahay war nabadgelya wax lagu noqdaa nabadgelya darro wax lagu noqdaa cid muquunin karaysaa ma jirto siyaasadna lagu isma muquuninayo xoogna la isku muquuninayo dadku aragti dheer buu maanta qaatay meel fog buu wax ka wada daawanayaa hawadaa la isku haystaa cidna waxa ay doonaysa lagama balfin karo soomaali weyna waxaan leenahay ha loo dhufto hoggaanka sharafteedii iyo idnimadeedii iyo masiirkii soomaaliyeed waxaanu leenahay ha la soo celiyo ha lagu shaqeeyo annana garabka iyaga haddaanu nahay khaatumo waa u taagannahay waxaanu nahay biriishkii soomaaliya in la kala gooyana ma ogelin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isku soo wada duuba ururka khaatumo daryeel dadkiiyo dalka ayaa wada horumar ballaadhan oo dhanka waxqabadka ah isla markaana waxaa imika socda
habkii ururkani uga howlgeli lahaa dhammaan degmooyinka iyo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Axmed Cabdiqaadir Jabaan, Axmed Darwiish TV, magaalada Buuhoodle, xarunta gobolka Cayn.